wuxuu ku dhashay dhiig dragon, laakiin marnaba ma uusan doonayn inuu noqdo dragon ilaa maalintii uu arkay aabihiis oo ay dileen bini'aadamka. daqiiqadaas caddadiisii waxay isu beddeshay awood argagax leh. wuxuu ka booday qar buur ah isagoon fekerin, ilbidhiqsigii dambena wuxuu cirka u duulayay isagoo ah dragon weyn. isla markaas dhammaan sirihii dragonyada ee sannadaha badan qarsoonaa ayaa maskaxdiisa ku soo qaxay. runta waxay ahayd in dhammaan dragonyadu ay yihiin rag. maadaama aysan jirin dragon dhadig ah, waxay khasab ku noqotay inay afduubtaan gabdhaha bini'aadamka si ay u tarmaan. marka gabdhuhu uuraystaan, dragonyada ayaa guba iyagoo nool. isla marka ay jirkoodu dambas noqdaan, waxaa ololka ka dhasha ilmo dragon ah. awoodda cabsida leh ee dragonyada ayaa bini'aadanka ku riday baqdin. waxay lahaayeen hal doorasho oo keliya, inay u huraan gabdhaha yaryar. dhaqanka naxariis darrada ah wuxuu socday qarniyo, ilaa haliyey dagaalyahan ah uu ugu dambayn jebiyey silsiladaas. ma uusan u dulqaadan karin inuu arko gacantidiisa oo weligeed laga qaadayo. wuxuu jacaylkiisii u beddelay xoog aan la jebin karin, wuxuu u kicitimay safarkiisii, ugu dambayntiina wuxuu gaaray godkii dragonka. wuxuu dilay dragonkii, isagiina wuxuu noqday dilaaga caanka ah ee dragonyada. wiilku ma uusan doonayn in taariikhdu isku soo laabato, markaas wuxuu isku qariyey dildilaaca buuraha dhexdooda. mar kasta oo uu u beddelmo dragon, meelaha ciriiriga ah ayaa ku dabin jiray oo u diidi jiray inuu soo baxo. sannado badan dragon lama arkin. bini'aadamku waxay bilaabeen inay iska iloobaan dhaqankii huridda gabdhahana wuxuu si tartiib ah isugu beddelay xaflad aroos. amiiradda ayaa ku jiifsan jirtay dooni iyadoo xihan dharkeeda ugu quruxda badan. xadhig ayaa ku xirnaa dhinac doonida ah, halka ninkii u doonana uu dhinaca kale ee xeebta taagnaa. faracii dilaaga dragonka ayaa xadhigga soo jiiday. isagoo faraxsanaan la sakhraansan, wuxuu dadka ka codsaday inay qaadaan heesta dragonka si ay arooskiisa ugu dabaaldegaan. wuxuu rumaysnaa in dragonyada mar hore la dabargooyey. ma uusan ogayn in dragonka sharaftiisu aysan u dulqaadan karin in lagu digto. daqiiqadaas laambadii saliidda ee amiiradda agteeda tiil ayaa dematay, cirkuna wuxuu noqday madow, dabaylo xoogganna way kaceen. isagoon doonayn ayuu u beddelmay dragon. wuxuu afduubtay Miraslafa oo ahayd gabadhii uu awowga u ahaa boqorka. qof walba wuxuu eegayay isagoo naxsan. xitaa Egor ma uusan lahayn awood uu ku joojiyo. Egor wuxuu taagnaa isagoo ciida ku dhex jira oo tabar la'aan ah, waayo ma uusan lahayn wax awood gaar ah oo uu kula tartamo dragon. dragonkii weynaa ayaa duulay isagoo Miraslafa u siday cirka sare, wuxuuna ku daayay jasiirad cidlo ah oo godoon ah. meeshu waxay ahayd mid madow oo cabsi leh. jasiiradda lafteedu waxay u muuqatay mid habaaran, muuqaalkeeduna wuxuu ka samaysnaa qalfoofka weyn ee dragon qadiimi ah. ma jirin waddo looga baxsado meeshaas. Miraslafa way naxsanayd, wadnuhuna waa u dilaacay. cabsideedii dhexdeeda waxay ku aragtay wiil jasiiradda jooga. iyadoo geesinimo isugu yeeraysa ayay u dhowaatay oo weydiisay, kumaad tahay? magacaa? wiilkii wuu aamusnaa. xitaa magaciisa ma uusan aqoon. wuxuu u muuqday mid wareersan oo fog, sidii inuu halkaas joogay ilaa carruurnimadiisii isagoo la iloobay. Miraslafa waxay dareentay naxariis. maadaama uusan magac lahayn, waxay go'aansatay inay u bixiso mid, waxayna ugu yeertay Arman. waxay bilaabeen inay wada hadlaan iyagoo jebinaya aamusnaantii jasiiradda. si lama filaan ah, waxaa soo muuqday dragon argagax leh. Miraslafa baqdin ayay la qaboofay. markii ay indhaha dib u furtay, Arman ma joogin, waxaana ku wareegsanaa makhluuqyo yaryar oo yaab leh. Miraslafa waxay u qaadatay in dragonkii uu qaatay Arman. iyadoo quus iyo cadho la kiciyey ayay bilaabay inay dhagaxaan tuurto. mid ka mid ah dhagaxantii ayaa ku dhacay laf weyn, taasoo keentay inay soo dunto. markii ay laftu soo dhacday, waxay si lama filaan ah u banaysay waddo qarsoon oo u horseedaysa dhinaca kale ee jasiiradda. Miraslafa waxay bilowday inay dhinacaas u dhaqaaqdo iyadoo rajaynaysa xorriyad. laakiin ka hor intaysan fogeyn, dragonkii ayaa mar kale soo muuqday oo jidka ka xirtay. wuxuu isku dayay inuu weeraro. Miraslafa dhinac ayay u booday iyadoo nafteeda badbaadinaysa. xilligaas Arman ayaa soo muuqday. waxaa weheliyey mid ka mid ah makhluuqyadii yaabka badnaa. makhluuqii wuxuu rabay inuu Miraslafa weeraro, laakiin Arman ayaa ku amray inuu joojiyo. isla markiiba makhluuqii waa adeecay. Miraslafa wadnaheeda waxaa ka buuxsamay shaki, sidee uu u xukumi karaa makhluuqyadan? Arman ma isagaa dragon ah? si lama filaan ah, Miraslafa way turunturootay, waxayna bilaabay inay ka dhacdo qarka buurta. isla ilbidhiqsigaas, Arman wuxuu u beddelmay dragon. isagoo leh baalal awood badan ayuu u soo yaacay oo qabtay ka hor intaysan biyaha ku dhicin. laakiin ma uusan xukumi karin isbeddelkiisa, labadoodiiba biyaha ayay ku dhaceen. Miraslafa waxay u halgantay inay istaagto, waxayna bilowday inay caawimaad u qayliso. Arman oo hadda bini'aadam u eg ayaa miir la'aan u jiifay. iyadoo argagaxsan ayay dhagax soo qaadatay si ay ugu garaacdo, iyadoo u malaynaysa inuu mar kale weerari doono. laakiin markaas ayay ogaatay wuxuu dhacay isagoo badbaadinaya iyada. ma uusan ahayn dragon naxariis daran. iyadoo dadaal weyn bixinaysa ayay biyaha ka soo bixisay. waxay badbaadiyeen nolosha midba midka kale. markii ay dib ugu soo celisay jasiiradda, Arman wuxuu bilaabay inuu dragon u beddelmo mar kale, laakiin miyirka ayuu lumiyey oo bini'aadam ayuu ku soo laabtay. wuxuu dhammeeyey dhammaan tamartiisii. subaxdii dambe, Miraslafa waxay go'aansatay inay baxsato, laakiin isla maalintaas waxaa kacay duufaan xooggan. onkod iyo hilaac ayaa qabsaday cirka, baxsashadiina waxay noqotay wax aan macquul ahayn. Miraslafa waxay si taxadar leh u daweysay dhaawacyadii Arman iyadoo isticmaalaysa dhir ay jasiiradda ka heshay. habeenkaas waxay ku riyootay Egor oo u imaanaya si uu u badbaadiyo. waxay ku dareemaysay ammaan riyadeeda dhexdeeda. laakiin markii ay toostay, ma uusan ahayn Egor.
waxay ahayd arman oo agteeda jooga oo si tartiib ah u leh deji nabad ayaad ila tahay. Maalmo ayaa gudbay. Kalsoonidu waxay bilaabay inay dhex muraan. Cabsidoodii waxay isu beddeshay faham. Waxay noqdeen saaxiibo dhab ah iyagoo wada ciyaaraya kuna dhex dabaalanaya biyaha nadiifka ah. Hase yeeshee maalin ayaa arman walwalay. Wuxuu isweydiiyey ka waran haddii bahalka gudaheeda ku jira uu maalin uun soo tooso oo uu dhibo. Wuxuu go'aansaday inuu Miroslafa u sheego runta. Aabahay wuxuu ahaa dragon ayuu u qirtay. Wuxuu doonayay inaan u noolaado sidii dragon laakiin waxaan doonayay inaan u noolaado sidii bini'aadam oo kale. Wuxuu u sheegay inuu goobjoog u ahaa markii Egor awowgiis uu dilay aabihiis. Taasi waa sababta aanan u ahayn bini'aadam buuxa ama dragon buuxa. Labadaba ayaan ahay. Marnaba ma doonayo inaan noqdo dragonyada dadka guba. Waxaan u halgamay inaan u noolaado sidii bini'aadam ayuu sii raaciyey. Wuxuu u sharaxay in heestii ay bini'aadamku qaadayeen maalintii arooska ay ahayd midii soo jiidatay taasoo keentay inuu afduubto iyadoon is ogeyn. Miroslafa waxay u dhawaatay oo si tartiib ah u tiri hawalwelin waxaan kaa caawin doonaa inaad xukunto bahalka gudaheeda ku jira. Arman ayaa weydiiyey ma aaminsan tahay in qof u imaan doono inuu ku badbaadiyo. Miroslafa waxay si kalsooni leh ugu jawaabtay haa waxaan sugayaa ninkayga u doonaan. Wuu ii imaan doonaa. Erayadaas waxay madoobeeyeen wejigii Arman. Masayr ayaa indhihiisa laga dareemay waayo wuxuu bilaabay inuu Miroslafa ka jeclaado sidii uu markii hore u fekerayay. Waqti ayaa gudbay. Miroslafa ma aysan isku dayin inay baxsato isla markiiba waayo waxay ku aragtay naxariis Arman. Waxay aragtay inuusan bahal ku ahayn doorashadiisa. Way wada qosli jireen wayna wada hadli jireen. Si kasta ha ahaatee maalin ayay Miroslafa hoos isaga tiri waa inaan baxsadaa. Waxaan iska dhigi doonaa inaan bilaabay inaan ka helo Arman marka ay fursad ii soo baxdana waan carari doonaa. Laakiin wax walba sidii ay qorshaysay uma dhicin. Toddobaadyo kadib jacaylkoodu wuxuu noqday mid dhab ah. Habeenada ka mid ah Miroslafa waxay ku riyootay riyo cabsi leh oo Arman uu ku gubayo. Waxay ku toostay qaylo. Arman ayaa agteeda joogay isagoo isku dayaya inuu dejiyo laakiin Miroslafa waxay dareentay cabsi mar kale. Waxay ka qarisay cabsidaas laakiin gudaha ayay iska weydiisay inay weligeed la joogi karto iyo in kale. Maalin isagoo ubaxyo u siday ayuu Arman u yimid oo ku yiri waxaan go'aansaday inaan noqdo nin sharaf leh. Mar dambe u bedelmi maayo dragon. Wuu dhoola cadeeyay isagoo aan ogeyn waxa ay Miroslafa fekerayso. Laakiin markii uu ogaaday in Miroslafa ay weli rabto inay gurigii ku laabato oo aysan si buuxda u aaminin wadnihii ayaa u dilaacay. Samee waxaad rabto ayuu yiri isagoo xanuunsanaya. Haddii aad rabto inaad baxdo soco. Wuxuu gudaha u galay godka isagoo cadho iyo murug badani hayso. Mar kasta oo uu dareemo murug weyn dhinaca dragonka ayaa soo baxayay. Laakiin xitaa markaas ma uusan rabin inuu dhibo iyada. Miroslafa waxay dareentay xishood. Icafi ayay hoos u tiri. Waxay garatay in Arman uu u halgamay inuu isxukumo iyada dadeed iyaduna ay fiyaantay. Waa goor dambe ayuu Arman si qabo u yiri. Shakigaaga ayaa i daciifiyey. Hadda dragonkaygu si buuxda uma xukumna. Iyadoo qalbi jabsan ayay Miroslafa jasiiradii kaga tagtay dooni yar. Dhanka kale badda dhexdeeda Egor iyo walaalkiis ayaa raadinayay Miroslafa. Jasiiraddu waxay ahayd mid qarsoon waana sababta aysan u heli karin. Runta ku saabsan Egor ayaa soo baxday marnaba ma uusan jeclayn Miroslafa. Wuxuu rabay oo keliya inuu guursado gabadha boqorka si uu awood u helo. Isagu waa fulay dabeecad ahaan. Walaalkiis ayaa si nacayb leh u eegay laakiin isla markaas waxay arkeen Miroslafa oo doonida ku jirta. Isla markiiba Egor wuu isbedelay isagoo iska dhigaya inuu muddo dheer raadinayay. Waan ka aargudan doonaa dragonka ayuu yiri Egor. Laakiin Miroslafa way been sheegtay si ay Arman u badbaadiso. Dragonkaas mar dambe halkaas ma joogo. Wuu baxay. Diyaarinta arooska ayaa bilaabatay. Miroslafa waxaa la saaray doonidii arooska laakiin ilmo ayaa ka daadanaysay wejigeeda. Qalbigeedu arooskan kuma jirin waxay u xiisay Arman. Jasiiradda dhexdeeda Arman isagoo murugaysan ayuu badda isku tuuray. Gacantiisa wuxuu ku haystay qalabkii muusikada ee heesta dragonka. Wuxuu ku fikirayay Miroslafa oo keliya. Xafladii arooska dhexdeeda Miroslafa way u dulqaadan weyday. Joojiya tan ayay qaylisay. Tani waa khalad. Ma jecli Egor. Waxaan jecelahay dragonka. Qof kasta waa yaabay. Miroslafa waxay bilaabay inay qaado heestii qadiimiga ahayd ee dragonka. Markii hore waxba ma dhicin laakiin markaas ayuu cirku isbedelay daruuro madow ayaana soo ururay. Dragon madow oo weyn ayaa cirka ka soo muuqday. Waxay ahayd Arman. Wuxuu soo degay oo Miroslafa ka qaatay qof kasta hortiisa. Miroslafa farxad weyn ayay dareentay. Egor wuu ka gaabsaday inuu horay u soo dhaqaaqo isagoo cabsanaya. Markii uu dragonka sii duulayay ayuu iska dhigay inuu u cararayo dhinaca halyeynimada. Walaalkiis ayaa ku dhuftay oo si adag u yiri jooji isyeelyeelka. Weligaa ma aadan u qalmin iyada. Dragonkii wuxuu Miroslafa dib ugu celiyey jasiiradda. Laakiin Arman xukunkii ayaa ka lumay. Wuxuu isku diyaariyey inuu dab ku afuufo sidii dragonyadii hore ay u samayn jireen. Laakiin Miroslafa ma cararin. Waan ku jecelahay ayay si geesinimo leh ugu tiri. Haddii aad igubayso iyo haddii aad ila joogayso kaa tegi maayo. Indhihii banaa ee dragonka ayaa naxariis laga dareemay. Si tartiib ah ayuu madaxiisa weyn u saaray dhabteeda. Waxay ahayd markii ugu horreysay ee qof jacayl u muujiyo isagoo dragon ah. Ugu dambayn nabad ayaa soo laabatay. Arman wuxuu bartay inuu isxukumo Miroslafana waxay doortay inay la joogto. Waxay ku noolaadeen jasiiraddii iyagoo qoys faraxsan ah iyagoo sheekadooda u sheegaya gabadhooda yar. Jasiiraddii mugdiga ahayd waxay noqotay gurigooda jacaylka.